su-aalaha weydiisa aad u mahadsan yihiin su-aalaha haddaan koobo jawaabdooda si kooban arrinta walaalkeen qalbi dhagax wixii ku dhacay hadda caruurtaada ahaa lahaa iyo walaalka ahaa lahaa saa u aragtaa mustafa cabdicasiis aa weydiiyey waxaa ii yiri muxuu ahaa senatarka marka inaan ku celiyana waxba waqtigan bay qaaminahay waa la yiri saa la maqlay marka waa la yiri macno weyn way waxa weeye intaas weeye mogta arrinta oo cabdicasiis ka dhawaajiyo mustaqbalka annaga wadamada deriska inaan nabad kula noolaano oo ay kaalin ka galaan qayb ka qaataan meesha aan naallo inaan ka kacno ayaan uga baahanaa mustaqbalka meeshaas ayuu jiraa waxay u baahan yihiin oo ayna weydiiyaana jiro oo dekada ah waa inaan siinaa waxay iyagu hayaan oo aan u baahannahaa jiro waa dad waa ogtahay soomaalida etoobiya ku nool inay soomaalida soomaaliya ku nool ka badan yihiin dhaqaalahooduna maanta fiican yahay mahadi ha ka gaarto mataqaanaa dadkeen usoo dhintay sida mataqaanaa sheekh xasan aabihiis oo kale allah naxariisto maantay dadkaasna la macaamilo iyaguna waa dalbayn annagana waxaa nala waajiba oo nala gudboon mustaqbalka inaan meeshaas fiirino ee aanan fiirin oo nalaf iyo jabhad inta ka socota iyo wax maalaayacnina loo joogo maalaayacni waayo oo nalaf inaan taageerno horey uma soo taageerin waxa hadda naloo sheegaa wadaniyiin naloo ka dhigayna siyaasiyiintaan aan ka hadalnaa wado oo nalaf dan soomaalida kuma jirto aan siyaad ninka ugu qoraha weynaa waddankan ahaa oo waxgaradka ugu weynaa ah oo waddankaa inta badan wax soo taray weligiis ma ictiraafin marka mustaqbalku wuxuu jiraa inaan wadamada kenya iyo jabuuti iyo ethoobiya aan nabadna kula noolaano ummadda soomaaliyeed qowmiyadda soomaaliyeed oo 30 milyan gaaraysana xuduudadan beentaha loo sameeyey inta la baaba'sho oo jabhaduhu ay dhinac walba ka cayaarayaan in inta la baabiyo la wada macaamilo oo dhaqaaladeenu kubco oo maanta meesha oo mataqaanaa aad looga dhawaajiyo aan ka kacno mustaqbalka meeshaasu jira arrinta dastuurka etoobiya laakiin waa ku qanacsanahay inay ummadda soomaaliyeed ee la nool u ogol yihiin inay go-aan hadday u baahdaan shanta soomaaliyeed la raadinayan macnaheedu ma ahayn shanta soomaaliyeed oo hal meel wada degan ma aha shanta soomaaliyeed xuraha la raadina xor waan xoroobeen marka taasna taasan ka leeyahay